agaasimaha warbaahinta qaranka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-Cadaala oo ugu horeyntii ka hadlay xafladda ayaa waxa uu warbixin dheer mas'uuliyiinta ka siiyay heerarka kala duwan ee soo martay warbaahinta qaranka isla markaana waxa uu ballan qaaday in bilaha soo socda TV-ga qaranka goob kasta oo dunida ku taala si toos ah looga daawan doono. waxaan rabaa wasiiro kooban inaan uga hadlo Radio Muqdisho iyo SNTV muddadii ay hadda dib loo hawlgeliyay ay soo jireen iyo wax yar oo kooban oo dabcan intiina badan aad la socotaan waxa halkan fadhiya dabcan ragga khubarada ahaa ee waqti badan ka soo shaqeeyay ee way aragnimada u lahaa iyo gabdhihii uu Cabdi Xaaji Goobdoon iyo ragga la midka ka mid yihiin oo aan dabcan hortooda qof aniga oo kale tahay inuu Radio Muqdisho uga sheekeeyo aan u qalmin 1951 ayaa Radio Muqdisho la bilaabay ama la aasaasay marxaladii uu soo maray oo kala duwanaana intiina badan wad la socotaan 2009 bishii Oktoobar 24keedii ayaa dawladda Soomaaliyeed waxay ku guuleysatay in ay dib u xoojiso Radio Muqdisho oo dabcan marna aan hawada ka bixin laakiin duruufo iyo maraaxil kala duwan ku sugnaa markaas oo wasaaradda uu wasiir ka ahaa Ambassador Daahir Maxamuud Geelle oo runtii waqti badan geliyay sidii Radio Muqdisho dib ugu soo kici lahaa waxaan dabcan marxaladaas ku shaqeynaynay idaacad FM ah oo maqalkeedu uu ku egyahay magaalada Muqdisho taas oo loogu talagalay ama dabcan siyaasadda ugu weyn ay lahayd ay ahayd in ay ka hadasho baahidii warbaahineed ee waqtigaas taagneyd waqtigaasi waxa uu ahaa waqti inteena badan aan wada xusuusanahay oo waddanka uu dagaal ku jiray isla markaana banaanaansho weyn oo dhinaca saxaafadii ay ka jirtay waxa ay markii inta badan idaacadihii gaarka loo lahaa ee waddanka ka hana qaaday dhowr iyo 10 sano la soo dhaafay ay shabaab madaxdoodii laayeen qaarna ay la wareegeen oo iyagu ay qaateen intii soo hartan ay ku qasbeen wax iyagu ay rabaan inay sheegaan waxa Radio Muqdisho markaa xoojiyay shaqaalihii waqtiyada kala duwan laga soo bilaabo 51kii joogay iyo qaar ka yimid saxaafadii gaarka ahayd ee shabaab ay u diideen inay shaqadooda sii wataan sida dabcan ay halkan ku muujiyeen wariyaasha iyo hawlwadeennada ka tirsan idaacadda iyo TV-ga ayay ahayd runtii xaqiiqada aan shaqada ku bilownay hadal badan uma baahna dad badan runtii way ku adkaatay inay rumaystaan ilaa al-shabaab ay hadleen oo ay dhaheen lama dhageysan karo sida hadda wariyaashu ay sheegeen intuu afhayeenkoodu hadlay uu dhahay nimanka idaacadda ka hadlaaya waa niman container ku xiran oo subaxina containerka laga soo daayo markay hadlaana containerka lagu celiyo container runtii laguma xirnayn dad geesiyaala oo magaalada taga oo warar ka soo qaada oo shaqaysta ay ahaayeen intii suurtagal ahayd runtii bilihii ugu horreeyay caqabado badan waa la kulannay caqabadihii ugu badnaana waxay ahaayeen in aan weynay cid nala hadasho cid aan waraysanno waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in munaasabadan ay nala joogaan dadkii ugu horreeyay ee na garab istaagay ee oggolaaday inay nala hadlaan ee fikirkan wadna nala qaataan Sheekh Nuur Baaruud iyo Canab iyo ay ka mid yihiin dadka kale ee sharafta badan ee halkan fadhiya runtiina boombonis naga ma ahayn laakiin xaqiiqo jirtay bay ahayd dad aan sharciyad kale tahaysan ayay ahaayeen marxaladan ku soo aadnay dagaalka ugu weyn aan wajahayno wuxuu ahaa dad aan wax kale oo ay badan oo ay dhageystaan aan haysan oo intooda badan aaminsan in nimankaasi wax una ka qaldanaadeen laakiin mujaahidiin ay yihiin oo shaqo fiican ay hayaan ciidamada dawladana cala la-uus iyo marya calas iyo maleeshiyaadka u yaqaana bedelkeeda cidda maleeshiyaad loo yaqaanay dhinacaas ay ahayd waxaan runtii bilo kooban ku guuleysanay in aan helno garab saxaafadeed oo waxaan sheegayna wax ka agdhow sheega ku dhiiraday inay magaca runta ay nimankaasu leeyihiin ugu yeera inaan abuurno dareen dadweyne oo aamina in dawladda ay jirto oo ciidamo jiraan oo qarannimo jirto oo bilaabay inay mataqaanaa maamooyin halkaan nala jooga ay ka mid yihiin inay biyo ciidamada furinta ugu geeyaan u tagaan u hambalyeeyaan waa mahadsan yihiin dhahaan runtii
xagga awoodda ay haysteen gobollo badan maadaama ay maamulayeen dawladduna meelo badan joogtay annagu waxaan haysanay radio muqdisho oo 90 mataqaanaa nambarka ku shaqeynaysa oo 90 kilomitir laga dhageysan karay iyaguna waxay haysteen wax ka badan 8 gobol 9 gobol oo waddanka ka mid ah oo idaacadihii ay dhaceen ay ku muxuu ahaa ay ku isticmaalayeen laakiin xogta aan helayna iyo baahida ay dadku qabeen waxay noo shahashay in si degdeg ah dareenka uu isku bedelo saxaafadda suuqa ka baxday iyo wariyaasha idaacadooda ay dhaceen ay ku dhiiradaan inay idaacada furtaan kadibna dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ku dhiiradaan inay aaminaan in inta shabaab wax laga sheego la hadlo haddana la sii noolaan karo oo maaragtay la sii jiri karo SNTV markuu ku soo biiray 2011 oo wasaaradda wasiirka ahaa wasiir Cabdikariim Xasan Jaamac oo caawa nasiib wanaag noo tahay inuu nala joogo waxay runtii noo ahayd fursad weyn oo wixii shabaab marka ay nagu la dirinayeen oo ahayd waxaan nimankan ay sheegayaan waa been oo dad badan ay aaminsanaayeen inaan awood u helnay inaan dadkii tusino waxaan xusuustaa maalin warshada baastada ayaa ciidamadu galeen markay ciidamadu galeen waxaan sheegnay in ciidamadii dawladdu ay galeen shabaab ayaa hadlay dad isku soo banaan bixiyeen waxay dhahan dadan waxaan isugu keenay warshada baastada gudaheeda banaanbaxa ka socda lagu taageerayo guulihii mujaahidiinta laakiin habeenkii waxaan nasiib wanaag noo ahayd inaan soo saarnay ciidamadii dawladdu inta calankoodii shabaab ka dejiyeen meeshii calankii buluugga ahaa ummadda Soomaaliyeed ka dhaxeeyay meeshii suraya marka halkaas waxay noo ahayd marxalad kala guur fiican ah oo runtii kala har fiican oo saxaafadeed uu ka jiray inkasta oo runtii ay facility iyo mataqaanaa waqti aad u fara badan ay shabaab geliyeen hawshaas muddada aan shaqadaas ku jirnay waxaa naga geeriyooday Ilaahay ha u naxariistay 6 qofood oo ka mid ah shaqaalaha oo shabaab ay dileen laakiin waxaan nasiib noo ah in caawa ay halkan joogaan oo ay shaqada idaacadda TV-ga wadaan 5 qofood oo qoysaskii dadkaas ay ka dhinteen ka yimid oo wiilashoodii iyo walaalahood ah taas oo runtii mataqaanaa dhiirigelin aad iyo aad u weyn noo ahayd runtii muddadaas aan soo koraynay ee dhageystayaasheena ay soo kordhayeen waxaan isku dayaynay in aan kordhinno sida ay dadka Soomaaliyeed noo heli karaan noo dhageysan karaan noo daawan karaan radio muqdisho waxaan idin sheegay waqtigaas inuu 90 kilomitir ahaa caawa laakiin waxaa FM looga dhageystaa 10 gobol oo ka mid ah dalka Soomaaliya laga soo bilaabo Kismaayo lagu geeyo Boosaaso ayay dadka Soomaaliyeed jooga hab FM u dhageysan karaan dadka jooga laga soo bilaabo Australia ilaa iyo Afrika iyo Asia waxay ka dhageysan karaan satellite qof kasto internet haysta wuxuu ka dhageysan karaa page-ka internetka ee radio muqdisho dadka Europe iyo America jooga waxay ka dhageystaan telefoonadooda wuxuu leeyahay website waa garan kartaan 5 sano gudahood waqtigaas iyo isbedelkaas meesha ku dhacay telefishinka qaranka oo runtii isagu ku bilowday in uu adduunka oo dhan gaaro oo aan uga mahad celinayo mataqaanaa wasiir Cabdikariim dadaalkiisii oo adduunka oo dhan markii hawada uu soo galaba gaari karay caqabadaha ugu weyn ee haysta waxay ahayd sida aan u heli lahayn agab telefishinkaas laga soo saaro oo dadku ay daawan karaan 24 saac ayuu hawada ku jiray maalinba marxalad ayuu soo gaarayay waxa lagu bilaabay hal xilli wareed 24 saac oo hal mar soo gasha maantana wuxuu leeyahay 8 xilli wareed 24 saac marka isbedelkaas waa garan kartaan caqabadaha kale runtii jiray waxa kamid ahaa dadka xirfadlayaasha ah ee la heli karay oo koobnaa dhaqaalihii wax lagu wadi lahaa iyo dabcan u diyaar garowga warbaahin sidaan oo kale ay u baahneed oo aan jirin laakiin waxa runtii nasiib wanaag noo ahaa markaan isku darnay dadkii hore ee muddada dheer soo joogay dadkii ka yimid private media ama saxaafadda gaarka ah iyo dad runtii ah dadka noogu muhiimsan oo ah dad halkan wax ku bartay oo ah dadka maanta noogu qaalisan haddii magacyadooda la idin sheego aad ugu jeceshihiin inaad telefishinka ka daawataan oo iskaashaday ayaa suurto geliyay muuqaalka aan maanta haysano iyo meesha aan joogno waxaan runtii aaminsanahay anigoo raba hadalkayga inaan soo koobo mudanayaal iyo marwooyin maanta waxaan haysanaa warbaahin aad u xoog badan oo awood badan leh oo runtii wax bedeli karta aanan aaminsanahay inaan wax bedelnay yacni in dadka Soomaaliyeed ay aaminaan dawladnimo inay jirto oo lagu tartamo qofkii jaamacad xaflad ku qabsanaya inuu jeclaysto inuu yaraan gudoomiyaha degmada uu kala soo qayb galo haduuna wasiir helayn waxay ahayd dareen 4 sano ka hor jirin 5 sano ka hor jirin 6 sano ka hor jirin 2009 ilaa 2000 oo dawlado ku meel gaari ay jireen intaas dawladaha soo jiray
midna uma ayna suurtagelin marxaladdan inay soo gaarto marka waxaan aaminsanahay aniga wax kale isma bedelin waddankuna waa waddankii dadkuna waa waddankii laakiin waxa isbedelay inay dadku heleen meel ay wax wanaagsan ay ka doortaan waxaa kaloo runtii fursad noo ahayd in inagoo ah warbaahin ay dawladda gacanta ku hayso oo laga yaabo in meelaha qaar xakamayn siyaasadeed ay iska jirto haddana inaan awoodnay inaan la tartanno oo suuqa wax kula qaybsanno saxaafadda gaarka ahayd waxaan aaminsanahay in runtii qaar badan yacni sidii saxaafaddu 2009 ay u hadli jirtay iyo sida ay maanta u hadasho farqiga u dhexeeya inaan gacan weyn ku leenahay maadaama iskaashi uu naga dhexeeyo saaxiibo aan nahay lana ogaaday in maanta dadku waxay rabaan inay daawadaan ay tahay wax wanaagsan in haddii ayn waxaan xusuustaa mar aysan idaacadaha Soomaaliya war ka ahayn oo anigu aan kamid ah dadkii ka shaqeynayay haddii madaxweynaha Soomaaliya uu meel booqdo ama uu cisbitaal la furo ama jaamacad 3,000 oo arday ka qalin jabiso ayna war ahayn idaacadaha xaggooda laakiin haddii qof la dilo ay war weyn ahayd oo haddii aan warka dil ku jirin ama khilaaf ku jirin la leeyahay maanta warka idaacaddan xiisa ma laha laakiin maanta waxaan maraynaa meel lagu tartamo ardayda qalin jabisa horumarka madaxda wadooyinka la dhisay oo aysan xiisa lahaynba in wax la qarxiyay iyo dad iskhilaafay iyo sheeko hore oo la soo dhaafay ay u eg tahay waxaan runtii iskaashi fiican la leenahay saxaafadda gaarka ah oo garab noo ah waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo tusaalaha ugu yar ee nala ka akhrisan karo ama nala ka fahmi karaa waxay tahay bishii la soo dhaafay waxaan go'aansanay magaalada Muqdisho warbixino badan laga soo saaray noloshu kama jirto waxyaabo badan laga sheegay wiil kamid ah shaqaalaheena oo aabiis halkan lagu dilay oo booski aabiis jooga ayaa shirka shaqaalaha wuxuu ka sheegay inuu warkaas dhibsaday uuna jeclaan lahaa in magaalada Muqdisho nolosha ka jirta la soo bandhigo fikradii shaqaaluhu way qaateen 22 barnaamij aan ka sameynay degmooyinka gobolka Banaadir qaar badan oo idin kamid ah way daawadeen maamulka gobolka Banaadir waxay noo sheegeen inay cilmi ka heleen annaga waxyaabahan ogeyn oo nooga soo baxay waxaa kamid ah degmo ka tirsan gobolka Banaadir oo 27 jaamacadood ku taalo iyo degmo ka tirsan isla gobolka Banaadir oo aan hal jaamacad ku ool degmo 13 cisbitaal ku taalo iyo degmo hal MCH ku yaalo oo aan wax cisbitaal lahayn marka awoodda meesha ku jirta ayay muujinaysaa waxa ku soo gaban lahaa madaxda wasiirada way nala joogaan dawladda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan waxaan aaminsanahay haddii xoog SNTV iyo Radio Muqdisho oo lagu daray hobalada waa beri iyo yani imkaaniyaadka wasaaraddan ay haysato wax badan inay bedeli karto marka waxaan codsan lahaa in balna la tijaabiyo oo dawladdu si fiican bay noo gacan qabatay noo taageertay si fiican 6 biloodna loo kaadiyay inaga bal waxaan qaban karnay si loo ogaado aad baan u codsan lahaa inaan isbedel waddankan waxaan aaminsanahay waqtigii qoriga iyo xabadda way dhamaatay inuu qof ku soo qanciyo wiil inuu isu soo qarxiyo oo uu soo tago hooyo nal u shidan yahay nalka gurigeeda horteeda ka shidan demiyo hooyadaasina aynan iyadoo ka fekerin awoodin inay wiilkaas sheegto waxaan aaminsanahay inaan gaarsiin karno inay wiilka weydii karto war gurigeyga hortiisaad mugdi la jeceshahay nalkaani diin ma ahane waa nal meesha laga taagay marka dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina sanadkan waxaan rajaynaynaa intaasoo horumar ah oo aan soo sheegno aan samaynay inaan wax badan ku kordhino waxa ugu horreeya hor yaalla waa inaad SNTV oo meel kasta oo dhacda ay ka jirto live looga daawan karo aad aragtaan 3-4 bilood oo nagu soo socota haddii ilaahay uu qadaro waxaan hor yaalla waxay tahay SNTV oo la studio mataqaanaa professional ah oo standard fiican jooga waxaan ku faraxsanahay in golaha wasiirada rag saxafiyiin ay kamid yihiin oo xirfadan ku jira oo yaqaana marka ayaga laftigooda eedna qorta way u surantaa waxaan isleenahay waxba idin kaga tagi doonaan baahideena og yihiin wasiiradeena cusubna si fiican bay u yaqaanaan marka waxaan aad iyo aad u adkeyn lahaa in runtii awoodda ku jirta wasaaradda warfaafinta ee waaberi iyo SNTV iyo Radio Muqdisho iyo wargeyska iyo Soona ay kamid yihiin dawladda Soomaaliyeed inay si weyn uga faa'iideysato salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay agaasimaha warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-Cadaala oo halkan nooga soo jeediyay kelmad waxyaabo kala duwan oo warbaahinta qaranka Soomaaliyeed horumar ay sameysay iyo caqabadihii markaa kor imaanayay waxaan jeclaan lahaa inaan kelmadeena soo koobano waxaan markaan jeclaan lahaa inaan siiyo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Batuula Sheekh Axmed Gaballe soo dhawow bismillaahi raxmaani raxiim
wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah gudoomiyaasha guddiyada baarlamaanka xildhibaanada qaranka wasiirka ku-xigeenada ururka haweenka qaranka gudoomiye ku-xigeenka canab gudoomiyaha ururka haweenka gobolka iyo dhammaan shaqaalaha qiimaha badan oo sharafta badan oo wadaniyiinta ah ee raadiyo muqdisho iyo TV-ga qaranka gobolada waa beri oo mar walbaba dhaqaajiya dareenka wadaniyiinta Soomaaliyeed kana turjuma danta ummadda dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runaantii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda sanad guurada afraad ee ka soo wareegatay aas-aaskii TV-ga qaranka Soomaaliyeed anigu waxaan ka mid ahaa dadkii joogay dibadda marka TV-ga la furay wuxuu hayaa xiriir weyn iyo isku xir dalka iyo dadka Soomaaliyeed ee dibadda ku nool ee rajada muddada dheer ka qabay in Soomaaliya ay dib u soo noqoto ayna helaan kalsooni ay dalkooda iyo dadkooda ugu soo noqdaan wuxuu hayaa xil weyn oo ummadda Soomaaliyeed ay u baahnayd waxaa maqan malaayiin Soomaali ah oo dalka dibaddiisa ku nool kuwa qaxooti ah oo weli aan maaragtay dhinacna raacin iyo ilmo dhashay oo ku barbaaray dibadda oo aan wax fikrad ah ka haysan meesha waalidiintood iyo dadkooda ay ka yimaadeen TV-ga qaranka dhambaal sida weyn oo ka turjuma Soomaalinimada dawladnimada horumarka dalka iyo Soomaaliya inay dib u soo noqotay oo keenay in aan caruurtii iyo nafteenaba dalka dib ugu soo noqono arrintan waa arrin aad iyo aad maaragtay u qiimo badan oo qof kale uusan samayn karin Soomaalidu waa war jeceshahay waxaana lagu tilmaamaa inaan nahay society oo oralka iyo hadalka ku badan yahay laakiin si kastoo u war badan nahay ama aan isu gudbino fariimada sida ay SNTV u gudbiso wanaagga iyo sharafka dalka horumarka dalka isbedelka maaragtay Soomaaliya ka dhacay qof kasta oo fariin qaada ma qaadi karin waxaan ugu hambaleynayaa wasaaradda warfaafinta kaalinta culus oo ay gashay iyo sida ay u gudatay waajibaadkaas wadaninimada ah oo ay dad badan oo ayaga kamid ah ay ugu dhinteen si ay waajibka u gutaan oo loogu dilay wariyaal fara badan ama ayagoo jooga goobta shaqada ama ayagoo u socda shaqadii qaranka ama ayaga oo maaragtay duubaya wararka iyo taariikhaha dhacdooyinka ee dalka ka socda in dad badan ay xabaal u galeen maantana aan dhiigoodii ku farxayno inaan ku gaarno meesha maanta aan soo gaarnay waayo haddayna taasi dhici lahayd ma dhacdeen gobonnimada oo la dhaliyay ayay la mid tahay TV-ga qaranka kaalinta uu ummadda Soomaaliyeed uga jiro anigoo ku hadlaya magaca ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed magaca haweenweynaha Soomaaliyeed waxaan u mahad iyo bogaadin u soo jeedinayaa TV-ga qaranka Soomaaliyeed wasaaradda warfaafinta wariyaasha qaaliga ah ee naftooda horeyaasha ah ee Soomaaliya xoreeyay ee gaarsiiyay maanta diilada iyo sharafka iyo wanaagga iyo quruxda Soomaaliya ka muuqda waxaan u rajeynayaa guul horumar waxaan ku faraxsanahay in gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan ururkii haweenka qaranka Soomaaliyeed oo ay horseed u ahayd Canab Xasan Cilmi oo ah gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka laakiin waa founderska haweenka iyo gudoomiyaha aniga iga horeeyay gudoomiye Caasho Cumar Geesdiil iyo dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed ee ururka haweenka qaranka ku midoobay inay dhinaca ka taagnaayeen oo ay taageero hiil iyo hooba la taagnaayeen mar walbaba kuna dhiiradeen iyadoo dadka xilka qaranka u haya oo waliba kaga sii garaada badnaa mas'uuliyadda dalka ay ka baqaayeen xilliga iyagu ay u dhabar maaragtay adeegeen inay TV-ga ka hadlaan ummadda la hadlaan geesinimadaasna waa mid lagu yaqaan gabdhaha Soomaaliyeed waa tii gobonnimada ay ku dhaliyeen waa tii dalka maanta Soomaaliya muddadii dawlad la'aanta ay ku sabata bixiyeen waa tan hadda ay la taagan yihiin waxaan idin leeyahay guuleysta dadaalkiina hore u wada hambaliyo Soomaaliya ha noolaato wasaaradda warfaafinta ha guuleysato TV-ga qaranka Soomaaliya ha noolaado
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Batuula Sheekh Axmed Gaballe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed oo halkan kelmadeedii ka soo jeedisay waan u mahadcelinaynaa waxaan ka codsanaynaa marti sharafta iyo xubnaha kelmadda kule halkan inay codadka ama hadallada inoo soo koobaan waxaan markan ku soo dhaweyn lahaa mikrofoonka Cabdirashiid Deel oo xubin sare oo kamid ah ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nosaj ku soo dhaw. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. marka waxaan salaamayaa wasiirka warfaafinta boosta wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyo wasiirka ku-xigeenka wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga gudoomiyaasha gudiyada baarlamaanka wasiirkeenii hore ee warfaafinta Cabdikariin Xasan Jaamac oo aan filayo in bahda warbaahinta madaxa bannaan iyo tan dawladaba uu xusuus gaar ah ka mudan yahay waa si gaar ah u salaameynaa runtii markaan soo noqday barnaamijka TV-ga qaranka runtii waxaan dhihi karaa waa hanti aan wada leenahay ummadda Soomaaliyeed hadaan nahay warbaahinta Soomaaliyeed waxaan qiyaasayaa inay inta badan yihiin warbaahin ay leeyihiin dad gaar ah laakiin warbaahin hanti Soomaaliyeed dhaxal Soomaaliyeed iyo ay leedahay dadka Soomaaliyeed in ay wada leeyihiin oo aan la kala xigin waa markii koowaad aadan u faraxsanahay runtiina si gaar ah ururka saxafiyiinta qaranka uu uga shaqeynayay sidoo kale waxaan aad u maaragtay ku tilmaami karnaa shaqaalaha saxafiyiinta iyo maamulka TV-ga iyo idaacadda qaranka in ay yihiin dad geesiyaal ah oo soo dhabar adeega iyadoo la dilayo soo dhabar adeega iyagoo la handadayo soo dhabar adeega iyagoo dhibaatooyin badan la kulmay runtiina aan ku tilmaami karno in ay yihiin dad geesiyaal ah geesinimadaasna ay keentay in maanta TV-ga qaranka dabaaldegiisa halkan u taaganahay runtii waa waxa lagu amaano oo aad loogu amaano midda labaad waxaan jeclahay inaan maaragtay aan soo gabagabeeyo oo ah in TV-ga qaranku maanta waxa uu ku tilmaaman yahay inuu yahay hawsha iyo wanaagga iyo dadaalka badan uu sameeyey mid uu ku dhaxlay inuu noqday TV-ga ugu daawashada badan warbaahinta TV-yada dalka ka jira taasna waxaan dareemi karnaa inay tahay hawl adag iyo dhabar adeeg badan oo howlwadanada maaragtay TV-gu ay sameeyaan waxaan leenahay hambalyo sanad guuri wanaagsan sanadka kalena waxaan rajeynaynaa in intaas in ka wanaagsan isagoo jooga aan gaarno bali ayaan leenahay ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed Nosaj magacooda ayuu ku hadlayay mudane Cabdirashiid Deel waxaan markaan jeclaan lahaa inaan mikrofoonka ku soo dhaweeyo xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ah gudoomiyaha guddiga warfaafinta iyo isgaarsiinta ee baarlamaanka Soomaaliyeed mudane Cabdi Xaashi ku soo dhaw kelmadaada. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. waxaan filayaa dhammaantiin horta waa salaam waxaan filayaa halka wariima yaallo aniga warkii halkan aan uga baahnayn intii hadashay oo Sheekh Nuur Baaruud u horreeyey iyo intii ka dambaysay baa yidhi waxaan dareenkayga siinayaa heestii halka laga qaaday ee adduunidu way ogsoon tahay heestaas ayaa waxa oo dhan koobay waxaan u hambalyaynayaa wasaaradda iyo laamaheeda kala duwan iyo telefishinka caawa halkan aan ku xusayno hadda waxa weeye kol haddaan idhi intaasi way noo dhan tahay aad iyo aad baad umahadsantihin aad u mahadsan yahay xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo sida wanaagsan oo murtida warka inoogu soo koobay waxaan jeclaan lahaa markaan inaan ku soo dhaweeyo Cabdikariin Xasan Jaamac oo ah wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta mudane wasiir ku soo dhaweeyo. Bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska wasiir ku-xigeenka wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga ah madaxda gudiyada baarlamaanka xildhibaanada ururka haweenka shaqaalaha wasaaradda warfaafinta marti sharafka dhammaantiin waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u mahad celinayaa wasiirka casuumaadda xafladdan quruxda badan ee uu nagu casuumay iyo dad ka soo shaqeeyey runtii sidaad qiyaasaysaan caawa dhan waa hadli karnaa warkana halla koobaa la yidhi meeshan dareen gooniya ayay noo leedahay in badan oo naga mida laakiin waxaan runtii ku raacsanahay
dadkii iga horreeyey in wixii la sheegi lahaa horey loo sheegay. waxaan akhriyay habeen hore mise xalay meel ay ku taalo dad baa ka soo qaxay Yemen oo Soomaaliya u soo qaxay. marka nin baa comment ka qoray wuxuu yidhi xaalku inuu aad u xun yahay waxaad ku garanaysaa markii dad intay qaxaan Soomaaliya u qaxaan. laakiin wuxuusan ninkaasi garanaynin qofka hadalka qoraya Soomaaliya inay meel uun dhibkii laga sheegi jiray uun ay tahay ilaa horumarka la sameeyay iyo meesha la joogo uusan ka warqabin. micno badan baa laga yaabaa inaan sameynaynin laakiin waxaa ku yaallay meel kale iyadana in Soomaaliya hadda ay ahayn waddanka ugu khatarsan Afrika oo ay ka hormartay Nigeria oo hadda booska labaad ay tagtay oo iyadu ay tahay meelaha qaarkood dhaanta. runtii Soomaaliya meeshii joogtay sidii horey loo sheegay ma joogto iyo meel u dhow toona. warbaahinta qaranka gaar ahaan telefishinkana oo aan u hambaliyeynayo runtii dadka ka shaqeeya u soo dhabar adeegay intii dhimatay iyadoo u shaqeynaysa dhimatayna Ilaahay u naxariisto inta noolna Ilaahay uu ku guuleeyo. wuxuu ka shaqeeyaa dhismaha qayb ka mid ah waddanka dib u dhiskiisa. dib u dhiska guryahana waa laga shaqeeyaa oo magaalada wuu ka muuqdaa. dib u dhiska dadkana waxaa ka shaqeeya warbaahinta, waxaa ka shaqeeya waxbarashada, waxaa ka shaqeeya riwaayadaha iyo tiyaatarka. dadka dabcigiisa waxa bedela waxa ay arkaan fanaaniinta caawa aan dhageysanaynay iyo kuwa kaleeto ka hadla runtii qolyihii TV-ga ka socday wariyaasha ahaa waxaad moodaa majaajilahoodu inuusan kaba dhicin dadkii professionalka ah iyagana waa u hambalyeynaya. runtii TV-ga qaranka wuxuu ahaa initiative si kooban Al-Cadaala uu ka sheekeeyey oo ah Soomaali inay wax qabsan karto. wax badan baan ka sheekeynay in wasiirradii naga horreeyay ay ka shaqeeyeen raadi inay kiciyeen kaliya maaha inay xataa TV-ga daraasooyin laga sameeyay oo ay meelaha qaarkood yaaleen in loo baahan yahay $3 milyan in la kiciyo television. dawladihii aan u tagnay markii aan halkan nimidna waxay yidhaaheen waxaas kama bixi kartaan dhaqaalna uma haysaan sheekada saad maqasheen. laakiin markii aan isku tashanay aan wax abaabulnay ay dadkii soo gurmadeen oo yidhaaheen marka haddaan wax idin taraynaa. marka isku tashiga iyo in la dhaqaaqo wuu fiican yahay waxna waan qabsan karnaa. telefishinka qaranka Soomaaliyeed waxaa dhalay raadiyo Muqdisho siyaabo badan buu u dhalay. studioska meesha ah ee lagu bilaabay waa studioyaashii raadiyo Muqdisho qaar la qaatay oo la dayactiray. shaqaalaha ka shaqeynayay ee bilaabay ee haddana ku badan waxay ka yimaadeen raadiyo Muqdisho oo meel kale kama imanin oo tababarra ay qaateen wasiirku uu hadda ka sheekeynayay iyo kuwa lamida dhalinyaro meelo kala duwan ka yimid oo runtii khibradooda isu keenay. waxay ku bilaabeen dadkaasi dadaal runtii dheeraada iyo geesinimo aan isleeyahay iyo ciidamada wanaaga. haddaa xasuusataan dagaaladii socday waagaas marmarka qaarkood waxaan tegi jirnay front lineska meelaha safka hore baabuur baan ku tegi jirnay. waxaa hor socday baabuurta ciidamada ajnabiga saaran yihiin ciidamada lugeynaya oo Soomaaliya oo markay dhintaan reerkoodu qaadanayo markay dhaawacmaana reerkooda loogu yeerayo. dawlad wax taraysay ma jirin. niman ka geesisan ama ka daacadsan hadday adduunyada ku nool yihiin anigu ma garanay meel ay ku nool yihiin. sidaas oo kale waxaa ahaa wiilal iyo gabdho wariyaala waa run qaar halkan ay deganayeen sida wasiirku u sheegay laakiin qaar baa markay ka soo baxaan shaqada halka iridaa ka bixi jiray oo lugeyn jiro xaafadahooda aadi jiray oo dhiman jiray marmar baabuur yar in loo helo mar dambe iyo waxba ayaan runtii badan taraynin. marka geesinimo iyo nafti hurid runtii ay muujiyeen ciidamada qalabka sida iyo wariyaasha ka shaqeynaya radio Muqdisho iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed. waana arrin naga mudan runtii mahad celin buuxda. runtii wax badan ku dheeraan maayo. waxaan rabnaa wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiirka qorsheynta qudhiisa in loo qorsheeyo runtii sidii kor loogu qaadi lahaa tayada bahda warbaahinta. waxay u baahan yihiin oo weli ka muuqata baahida jirta tababaro in la siiyo engineer in loo helo lighting engineers iyo sound engineers dheeraada lagu tababaro software la siiyo. wax badan ay u baahan yihiin sababtoo ah sida aad sheegteen tayadiisa marka kor loo qaado annagoo dhan ayuu waxna taraya. annaka waxaan ka shaqeynaa hadda bahda waxbarashada aniga iyo professor Yaxya iyo rag kale oo meesha jooga. waxaan diyaar u nahay inaan qaybteeda ka qaadano. dhalinyarada ka shaqeysa halkan waxaan ku talagelaynaa 5 kamida inaan u sameeyno script writing course 5 kamidana inaan siino scholarship buuxda oo 4 sano ay wax ku dhigtaan jaamacadda City University. ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo bahda telefishinka qaranka Soomaaliyeed radio Muqdisho wasaaradda warfaafinta wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka dhammaantiin waa idin hambaliyeenaynaa waa idin mahad celinaynaa
waana idin ducaynaynaa. waxaan kusoo gabagabeynayaa hobolada waa beri oo caawa halkan wax badan nagala hadlay. markii wax la sameeyo TV la sameeyo waxa ugu horeeya ku waajahaya maxaad ku buuxinaysaa waqtigan faraha badan 24 saac bahal shidan wuxuu u baahan yahay content buu u baahan yahay. waddankaygana maba jirin dad iskooda u soo saara oo waxaan sameeya. marka hobolada waa beri in la soo celiyo dan uguma jirin kaliya hobolada waa beri waxay ugu jirtay wasaaradda inay maaragtay buuxiyaan kaalintaas marnayd. waxaan xasuustaa markii wasiirka aan ahayn la soo celiyay ayaa waxaa noo yimid ay bilaabeen shaqada nin mas-uul ah wuxuu yidhi waxaad soo celiseen dadkii xoololeyda ahaa ee dagaalka uun ka sheekayn jiray. waxaa jira fanaaniin kaleeto beeraley ahoo nabadda ka sheekeeya marka kuwii baa laga tegey. dhowr bay ahaayeen waa la shaqo geliyay haddana nin kale noo yimid oo caawa meeshan joogay wuxuu yidhi waxaad ka tagteen xoololey iyo beeraley unbaad qaateen badleydi baad ka tagteen. marka dhowr badley iyagana la keenay oo soo galay in lagu dhan yahay baan rajaynaa. hadda aad baa u mahadsantihiin. hambalyo mar kale wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waayahay wasiir hambalyo ayaan leenahay. qaybihii dambe ayaan kusii dhownahay. markaana waxaan jeclo lahaa inaan kusoo dhaweeyo wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah mudane cabdiraxmaan caynte. mudane wasiir fali tafadal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيرك وزارة ورفافنتا وزير كحيان كيسا وزيرك ورا وزارة ورفافنتا حلبانada guddoonka ururka haweenka Soomaaliyeed iyo kuwa gobolka Banaadir saxafiyiinta asxaabta kale halkan fadhida waa idin salaamay marka hore. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib waxaan ku biirayaa dadkii runtii u bogaadiyey wasaaradda oo wasiirku ugu horeeyo caawa xafladan quruxda badan iyo sanad guurada afraad ee ka soo wareegatay markii TV-ga la sameeyay. anigu 10 sano ayaan saxafi ahaa intaanan howlo kala gelin. marka haddiiba aan tol sheegan karo tolka kaliya aan sheegan karo waa runtii saxaafadda iyo saxafiyiinta oo aan aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay dad badan oo dhalinyaro ah halkan aan asxaabnahay inay fadhiyaan TV-ga iyo raadiyahana ka howlgalaan. waxaa halkan sartan waxaa iigu horeysay aniga 2011 weligay baan soo galaba anoo dalkaba markaas sanadkii 2011 aan kusoo laabtay laakiin aan booqasho ku bilaabay 2011 wasiir Cabdikariin oo wasiirka aan halkan mar imid markii TV-ga la furay. asxaab badan oo halkan fadhisa usbuuc seminar aan halkan ku sameynay meeshaan aan isku baranay waqti badan aan wada qaadanay. cadaala hadal uu sheegay hadaaya ayaa halka sheegis mudan mar kale oo ah markaan inta imid 2011 wasiir waa joogtay adiguna wariyaashu meeshaan waana ka shaqeeyeen waana deganaayeen guriga u ahayd wasiirka xataa waa deganaa wax kala dhaaf barigaas adduunyada soo ahayd. meel kale oo la kala aado runtii magaaladu ma ahayn halkaanay ay maaragtay ay halgankooda dhabta ah runtii ka wadeen ayagoo naftooda khatar aan caadi ahayn ay ku jirto welina waa ku jirtaa laakiin runtii waa mudan tahay. marxaladii uu cadaala sheegayna ka mid tahay oo lasoo maray. anu waxaan xasuustaa anoo BBC-da ka shaqeeya waxaa dhacay dagaalaa magaaladan ka dhacay. dagaalkii qolaa madaafiic dekada rabtay markaas inay xiraan waa 9 leydkii intay ahayd qolaa rabtay inay xiraan dekada madaafiicii dekada ku tuureen. gabar wariyaha Farxiyo Cali Qaajal dhii jiro halkan kasoo warrami jirtaa warka soo dirtay. marka waxay tiri maanta dekadii waa qolaa rabtay inay furto qolo kalena waa xirtay madaafiica lagu soo tuuray dekadii waa la furi waayay. habeenkii galabtii sheegtay idaacadda 5 galabnimo ay sheegtay. habeenkii intaan la gaarin waan soo wacday waxay tiri waa laygu dhagan yahay nina ii yimid wuxuu yidhi oo madfaca in meesha lagu soo tuuray waaba sheegtay madfaca maasaa is soo tuuro dadaa iskale dadka soo tuuran maxaa u sheegi weyse ilaan madfaca wuxuu lahaa ujeeddo siyaasadeed asaga ma keligiis meesha iska yimid. war ani maanaa ogay tiri wixii soo tuuray haddaada ogay wuxuu yidhi hadda lagu ogeysiinaa hadda lagu baraa madfacan hadda inaa caawa idaacadda ka sheegtay 9 fiidnimo inaa aniga soo tuuray maana wax kale oo kala soconaya ma jiraan. wallahi ilaahay iga sarreeya idaacadda fiidnimaa laga sheegay hebel iyo hebel iyo hebel soo tuuraa la yidhi axire. waa marxalad ka mid a marxaladii oo dalkeena soo maray oo aan maanta aan dhinaagarey karin anaa u soo taagnaaba qofka lama weydiinayo. waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo iraahdo wariyaasha idaacadda qaranka iyo TV-gaba waxaan rabnaa inaa noo warantaan
nagana warantaan inaad noo warantaan oo waxa jira say yihiin aad noogu sheegtaan dowladaan nahay dowladda idinle darteeda inaadan xaqiiqda uga fogaanin mas-uuliyadda koowaad oo idin saaran ma aha inaad dowladda ammaantaan anu saxafiyaan ahay inaad runta idin sheeg waa muhiim marar badan waxaa laga yaabaa qofku markuu idaacadda qaran ka shaqeeyo inuu u haysto mas-uuliyaddiisa inay tahay inuu dowladda ammaano xaashaa lilah saxafiyiinaad tihiin waa inaad dhabta noo sheegtaan sidai wax u jiraan aad noo sheegtaan hadday qaraar tahayna xataa noo sheega ilaan dhabtaa xaqiiqdaa aana deeqday annaga runtaana deeqday laakiin beenna ma deeqdo iyo buunbuunin waxaan kaloo rabaa inaa laakiin waxa wanaagga oo dowladdu samaysay iyo dadkuna dowladda keliya maahana dadka ay sameeyaan inaad ka warantaan iyaduna si dhaba inaad uga warantaan idinkoo aan waxba buunbuunin waxaa muhiim inaad ogaataan idaacadaha waaweyn oo hadda adduunka ka jira maanta b b c da iyo v o a da iyo ugu waaweyn dowladaha iska leh waa state owned waay dowladay u shaqeeyaan dadka badankooda ma og waxay u malayan inay madax bannaan yihiin waxoogaa qaabka maamulkooda ka yara madax bannaan dowladda laakiin at the end of the day waxaa iska leh dowlada iska leh dowladay u shaqeeyaan marka laakiin maanta b b c da waxaa lagu tiriyaa maaragtay hay-adaha ugu waaweyn xagga mediada ugu dhabta ugu dhow ugu soo warrami og laakiin dowladda iska leh war taasoo kale waa noqon karnaa waa ka daba dhawaan karnaa mas-uuliyaddaasa idin saaran mar kale iyo mar saddexaad waa idiin bogaadinaa wasiir waxaan idin leeyahay iyo wasiir ku-xigeenkaagaba allah idinla garab galo hawshaa wadaan waxaan xasuustaa maalintii cabdikariin uu wasiirka bilaabayay hawshaan oo t v-ga runtii u dhigayay iyo maanta markaan isu fiiriyo shawd dheeraa lasoo gooyay muddada yare uu jira marka taasna runtii aadaan idinkugu bogaadinaya waa mahadsantihin qaybihii dambe ee xafladeenna ayaan markaan isla soo gaarnay wasiirka ayaa waxa uu xarigga ka jari doonaa wakaaladii wararka soomaaliyeed ee sona Somali National News Agency oo caawa aan rajeynayno shaqaalaheeda inay farxad u tahay mudan wasiir soo dhawow wasiirka ayaa xarigga ka jari doona sona bismillaahi raxmaani raxiim sidaa la sheegay walaalayaal caawa waxaa la furayaa sona oo ah wakaaladda wararka soomaaliyeed ayaa la furayaa waa habeenkii ugu horeysay meeshii Soomaaliya wararkeeda laga qaadan lahaa ayaanu furaynaa soo dhawaada hadalno dhaqaalaha wuxuu leeyahay page aan ugu talagalnay waxbarashada oo dadka mutacalimiinta ah ee dalka dibadiisa iyo gudihiisaba joogo ay maqaalada ay soo qoraan aan ugu talagalnay halkaas inaan ku faafino hadduu Ilaahay yiraahdo muhiimadda wakaaladdu ay leedahay iyo taariikhdooda kooban dib ayaan uga hadli doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo laakiin hadda wasiirka ayaan ku wareejinayaa si xariga uu uga jaro wakaaladda bismillaahi raxmaani raxiim waxa khayr la ilaahay iyo wakaaladii oo si adag oo Soomaaliya anfacda oo dalkani hadda meel wararka laga qaato male wararka laga qaato waa click garaynaya haloo sacabiyo wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed sona sidaad aragtaan wuxuu leeyahay bogga hore wararka dhaqaalaha ciyaaraha waxbarashada dhaqanka iyo maqaalo ayaa ku soo baxaya qof waliba khankii uu galo wuxuu ka helayaa dhammaan cilmigii iyo wararkii ku saabsanaa dhinaca dhaqaalaha wuxuu leeyahay page English oo dadka banaanka jooga sidaad ogtiin Soomaalidu meelo badan adduunka bay ku faaftay sidoo kale beelo badan oo xiriir baynu beesha caalamka la leenahay marka wuxuu leeyahay bog English oo intii oo kale leh sidoo kale maadaama afka carabigu yahay afkeenii labaad isla markaana Soomaalidu ay ku hadasho diinteena ku qoran tahay isagana waxaan ugu talagalnay ururka jaamacadda carabta ee dadka carabiga ku hadla inuu iyaguna ay page-kooda ka helaan waa u jeedin dhaqankii Soomaaliyeed iyo khudaartii iyo waxa lagu muujin doonaa hindaha iyo dhaqanka iyo sharafka iyo taariikhda Soomaaliya lagu muujin doonaa marka walaalayaal aad iyo aad bay farxad noogu tahay caawa inaanu kicino qayb kamid ah warbaahintii Soomaaliyeed oo xoog leh oo ah wakaaladii wararka Soomaaliyeed waa mahadsantahay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa waxa uu sheegay in ciidanka qalabka sida iyo wariyaasha warbaahinta qaranku ay yihiin naftooda hurayaal u istaagay sanadihii la soo dhaafay sidii dalka looga samata bixi lahaa dhibaatada muddada dheer oo ku soo jiray isla markaasina ay mudan yihiin in lagu bogaadiyo hawsha ay qaranka u hayaan ururka haweenka Soomaaliyeed hobolada waaberi dhammaan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska marti sharafka dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal
marka ugu horeysa waxaan mar labaad idin leeyahay ku soo dhawaada waa mahadsantiin aan nagala soo qayb gashaan xafladan sanad guuradii afraad ee dib u aasaaska warbaahinta qaranka Soomaaliyeed aan nagala soo qayb gashaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waan mahadsantiin waxaan fursadan leeyahay runtii sidii hore loo yiri inaan wariyayaasha iyo shaqaalaha agaasimayaasha dhammaan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska gaar ahaan qaybta warfaafinta inaan idhaahdo hambalyo iyo dabcan wasiiradii iyaguna soo bedelay wasaaradda warfaafinta soo maray ee halkan soo gaarsiiyey wasaaradda inaan idhaahdo hambalyo wixii aad qabateen waa sii wadaynaa waxaan ballan qaadaynaa inaanu muddadaanu annaguna joogno wax badan ku darno sida caawaba soono loogu daray waxaanu maanta sidoo kale xadhigga ka jarnoo furnay stuudiyo cusub waa furaynaa muddo yar kadib laakiin waxaan furnay qolka wax soo saarka wasaaradda wasaaraha raadiyaha iyo telefishanku hadda waxay wax ku samayn jireen in wixii maalintaa lasoo qabto iyo sidii uu cabdikariin sheegay hobolada waaberi iyo fanka Soomaaliyeed wixii u kaydsan laga sii daayo TV-ga laakiin waxaanu maanta xadhigga ka jarnay sidoo kale qol ay fadhiyaan maskaxdii wasaaraddu oo qalabaysan oo programmiska wasaare ka baxaya TV-ga iyo raadiyaha dawladda la keeno wariyaashu keenaan habeeya tafatira kadibna isagoo habaysan ku wareejiya dadka sii daynaya qolkaas waa qalabaynay qayb kamid ah waxaanu ku qalabaynay waxyaalaha aanu ka soo amaahnay ganacsato waxaan jecelahay inaan ka sheego in 7 laptop oo casri ah oo lagu qalabeeyay qolkaas in company Soomaaliyeed noogu deeqay aniga iyo Cadaala kala qaybsanay oo aan anigu computerna raadinaya adiguna miisas iyo kuraas raadi anigu markaan u tegay dad aan isnaqaan oo aan war computer isiya si aan hadhow idii siiyo waxayna waa ku siinay yani maaha deyn ma marka waa amaanaya companygaas walaalayaal waxaan amaanayaa shaqaalaha wasaaradda warfaafinta oo sidii la sheegay iyaguna riwaayadda ku soo bandhigay ku shaqeeya duruuf aad u adag shaqaalaha qura ee shaqeeya 24 saac wey 24 saac meeshaan aad joogtaan sidaasay u shidan tahay uga baxaya barnaamij maadaama ummadda Soomaaliyeed maanta aanay qorraxdu ka dhicin waxa la yiri ingiriiska ayaa dhihi jiray calankayga qorraxdu kama dhacdo Soomaalidu maanta dadka af Soomaaliya ku hadla maanta qorraxdu kama dhacdo marka inaan la hadalnaan doonin oo mid kasta maalinta markay galab u tahay galabnimo kula hadalno habeenimo kula subaxnimo kula hadalno lama damiyo warbaahinta dawladda marka shaqaalaha iyo ciidanka nabadgelyada ee ka shaqeeya halkan iyo hobolada waaberi oo had iyo jeer taagan waxay shaqeeyaan 24 saac ayay ka shaqeeyaan halkan ammaan iyo bogaadin baan u dirayaa sidoo kale fursadan waxaan jecelahay inaan walaalkay Cabdikariin hadalkiisii tixraaco oo iyadana hambalyo u diro ciidamada qalabka sida oo ammaanka dalkan walaalayaal waxaan dhihi karaa labada qolo hobolada iyo warbaahintu way israacsanta iyo ciidamada qalabka sida waa dadka dalkan ugu muwaadinsan waa haweenka ku darbayleeda gudoomiye waa dadka ugu muwaadinsan haweenkuna waa ku jira dadka ugu muwaadinsan weeye sababtoo ah duruufaha ay ku shaqeeyaan kuwa ugu hooseeya weeye dadka dawladda u shaqeeya shaqada ay qabteenna ta ugu fiican weeye sharaf waxa ii horena waa u sheegay mar labaad inaan sheego ciidankeenu inuu yahay ka ugu geesisan maalintii dhaweyd hotelkii center la dhahayay Maka al-Mukarrama waxay doonayeen sidii ay hadda yeeleen jaamacadda inay yeelaan murtadiinta waxay wateen intii aan hore u sheegay bambooyin iyo qoryayaal boobayaala iyo toorayaal waxay wateen laptop wata solar waxay ku talagaleen intay qabsadaan meesho dadka soo dejiyaan oo qol isugu keenaan oo midiyaha iyo babooyinka ula soo baxaan maadaama korontadu ka go'ayso meesha inay laptopka information bay dirayeen marka laptopka inay qorraxda geeyaan marba oo soo kululeeyaan oo information ki haddana diraan oo information ka kala goyn kan baan gowracnay kan baan soo qabanay
ciidamada geesiyaasha ay fursad daqiiqaday u diideen daqiiqad inay nastaan bay u diideen markay galeen way ka daba galeen markaasay u saamixi weysay inay hal qof qolkiisa ugu tagaan ilaa ciidamadu qol ku xidheen ku waardiyeeyeen shaab shooterisku qofkii soo baxa oo madaxa ku dhufteen ee uu siraa qolka aad kuwa kooridoorka jooga kooridoorka maraya aad wuu dhimanay halkii sidii looga hortaagnaabaa waa soo dhawaadkii labadii ugu dambaysay meydkooda laga soo qaaday waxa weeye dadka ugu muwaadisan weeye dalkan waa inaan ammaanaa waa in la isgarab istaagaa ganacsatada iyo dadka soomaaliyeed waa inay ciidamada ammaanaan oo garab istaagaan intaa markaan idhaahdo walaalayaal warbaahintaa laga sheegay meesha laga keenay riwaayadii wariyaashu inoo dhigeen halka dadku dhegaysigoodu siduu ahaa maanta waa ta ugu dhegaysiga badan daraasad la sameeyey 54% ayaa dhegaysta dadka wax dhegaysta marka inta kale la isu geeyana 30% iyo wax lamid ah dhegaysta marka ta ugu dhegaysiga badan waaye adduunka ayaa hadda maraysaa waxaanu rajaynaynaa 100% inaan ka dhigno waxaan ammaanayaa mar labaad iyo mar saddexaad wasaaradda warfaafinta shaqaalaheeda wariyayaasha geesiyaasha iyo gobolada waaberi iyo dadka Soomaaliyeed iyaguna ku dhiiraday sidii ninkii halkan ee fulayga ahaa la gamba warka ku dhiiraday inay la hadlaan warbaahinta dawladda soo dhaweeya walaalayaal inta markaan idhaahdo waxaan jecelahay inaan dhowr qodob ka idhaahdo waxyaalaha aan damacsanahay wixii la soo maray waa laga soo sheekeeyay horumarin badan ayaan wasaaraddan halka sano soo socota ku samayn doonaa insha Allah taageerada shacabka Soomaaliyeed aan haddaba sheegay iyo taageerada dawladda iyo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada waxaanu furi doonaa madbacadii qaranka ayaanu jecelnahay qorshaha noogu jirta inaan furno si dukumentiyada dawladdu gacan amaana uga soo baxaan oo loogu daabaco waxaanu dhawaan furaynaa already daraasadiisii dhamaatay library wariyaashu ka heli doonaan xogta warbaahinta iyo xogta dalkooda ay ka heli doonaan ayaanu wasaaradda dhexdeeda ka furi doonaa dhismaha waana la ka caawiyey lacagtiisina waa la hayaa waa furi doonaa insha Allah taala waxaan noo qorshaysan inaanu national theatre kii furno hobalada aad arkaysaan ee caawaydii heesaad aragtay qaadayay qol qof leeyahay guri qof leeyahay ayay ku soo alifeen heestaas oo aan qaadayn oo aan tijaabo ku samayn karaynin dawladda iyo intaba way u gudbinay waana naga ballan qaadin in national theatre kii la furo si hobaladu u awoodaan inay sameeyaan wacyigelin shacabka u sameeyaan macadka suxufiyiinta ayaanu ku dadaalaynaa inaan samayno maadaama Soomaalidu ay leedahay hadda warbaahin xoog leh ta dawladda iyo ta private-ka labadaba oo annagu aan mas'uul ka nahay inaan horumarinana doonayno waxaanu doonaynaa inaan furno macad ay wax ka bartaan wariyaashu oo aqoontooda kor loogu qaado waa uga mahad celinaynaa mudiirka jaamacadda inuu noo ballan qaado deeq waxbarashana siiyo aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa wasiirka saaxiibkaya oo runtii ahaa asaasihii telefishinka aan dhihi karo nin siyaasadda mar saamayn ku leh ku lahaa nin saamayn la isagoo saamayn leh isagoo wax qaban ka taga laakiin Cabdikariin saamayntiisa waa ka faa'iideeyay wuxuu sameeyay hay'adii ugu fiicnay ee dadka Soomaaliyeed ku xidhan yahay waxaan noo qorshaysan walaal inaanu badino istuudiyaasha dhawaan waxaanu isku dayi doonaa insha Allah taala inaanu istuudiyo kala furno sidaan idin sheegay horumarinta barnaamijyada waxaanu isku daynaa inaanu TV-ga Soomaalida ka dhigno mid live ah oo aanu satellite live ah oo kamarada Soomaalidu meel kasta ay tagto qofka uu hawsha uu wado automatic loo daawan karayo hadda waad la socotaan barnaamijkii aynu caawa ku jirnay already waa la socdaa waxa weeye adduunka waa laga daawanayaa inaynu xafladan fadhino oo barnaamijkani socdo waan ka codsanayaa inay u bedbedelaan yani waa socotaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxa weeye walaalayaal waxa noo qorshaysan inaanu FM-ka oo hadda 10 gobol siduu sheegay agaasimaha waaxda warbaahintu 10 gobol hadda gaarsiisan inaanu dalka oo dhan annagoo ku xidhaynaa ateenooyinka dawladda iyo kuwa kambaniyada aanu saaxiibka nahay intaba Soomaaliyeed inaanu dalka oo dhan gaarsiino FM-ka ayaanu isku dayaynaa waxaanu samaynaynaa website dawladeed oo weyn oo laga helayo xogta dawladda wasaaradaha qorshayaashooda iyo kulli laga helayo ayaanu samayn doonaa waxaanu samayn doonaa insha Allah taala warbaahin digital ah ayaanu samayn doonaa waayo annaku waxaanu la soconaa aqoonta siday u socoto social media dawladda afkeeda ku hadla
oo dhalinyarta iyo dadku ay kala socdaan akhbaarta ayaanu samayn doonaa. waxaa noo qorshaysan TV-ga dawladda oo hadda hal channel inaanu channel kale ku darno oo channelka arrimaha bulshada la dhaho. kan wararka u badan wararkaanu ka sii daynaa, laakiin aanu channel kale arrimaha bulshada ku darno, ciyaarihii ka sii dayno, riwaayadihii ka sii dayno, haddii bayda ka leeyahay isboortiga dhalinyartu jeceshay ka sii dayno, si aanu isla markaa ugu dhexgelino wacyigelinta ay u baahan yihiin aanu ugu dhexgelino. marka 2 channel inaanu ka dhignaanu isku dayi doonaa. safaaradaha iyo kulli yaa dareenka laga qaadin iga jooji marka. marka waa mahadsantihiin. waxaanu isku dayi doonaa inaanu bulletin samayno oo safaaradaheena iyo beesha caalamka subax kasta wixii dalka ka dhaca ee wanaagaanu culayska saari doonaa aanu siino ayaanu isku dayay. safaaraduna aad bay nooga codsadeen dhinaca horumarinta shaqaalaha aad iyo aad baanu ugu dadaalaynaa. already waa noo bilaabantay, wasiirka ayaa noo bilaabay oo ilaa heer jaamacadeedna siiyey, wuu mahadsan yahay. saasaanu jaamacadaha kalena ka codsan doonaa. waxaanu doonaynaa warbaahinta Soomaaliya inaanu ka dhigno midda ugu awooda badan adduunka. dawlado yaryar oo adduunka ah oo aan dhihi karo aan sheegi karno waa dawladda aan walaalahana qadar ka mid tahay ayaa warbaahinta adduunka iyo dhagaha dadka haysata. innakuna saasoo kale aan doonaynaa inaan noqono dhalinyar badan, warbaahina iyo stations badan baan leenahay. warbaahinta private-ka saaxiib baan la nahay, aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa. diyaar bay u yihiin inay dawladda la shaqeeyaan, kala shaqeeyaan danaha qaranka. xalayto waa jira maaragtay idaacad baa la xidhay, waa la xidhiidhay mulkiilihii idaacadda. runtii khaladaad ka dhacayna wuu jiraa. digniino ay u baahnaayeen in la siiyo warbaahinta hortaana way jirtay. ra-iisul wasaarahana waa wada hadleen agaasimaha. waxaanu isku daynaa inaan hawada ku soo celinno, la saaxiibno, danta qaranka kala saaxiibno, inayna jeeggareeyaan oo sidii haddaba wasiirku sheegay warbaahinta dawladda iyo private-kuba ay wixii runa sheegaan, wixii dalka dan u ahna ka wada shaqeeyaan oo amnigu ka mid yahay, wadaniyadu ka mid tahay, midnimada dalku ka mid yahay, gorgortan ma leh inay ka wada shaqeeyaan ayaanu doonaynaa. waana soo dhawaynaynaa warbaahinta xorta ah. walaalayaal intaa markaan kaga baxo TV-ga qaranka iyo bogaadinta iyo hambalyada aan u dirayo shaqaalaha iyo agaasimayaasha oo aan dhihi karo waana furayaal. wax yar baan waxaan ka dhahayaa dhibaatada dalkeen maadaama ahay wasiirkii warfaafinta aanuna ballan qaadayno dadka inaanu hadda wixii ka dambeeya wacyigelin doono. waxaa noo bilaabanaya barnaamijyo wacyigelin oo adag. sida la sheegay barnaamijyada waa tayaynaynaa. production room baanu soo haynay oo la keenayo barnaamijyada. qof kasta oo Soomaaliyeed oo barnaamij wada laga qabanayo hadduu u qalmo in bulshada la gaarsiiyana gaarsiinayno. marka walaalayaal aad iyo aad ayaanu runtii leenahay halkii wasiiradii hore keenay inaanu xoog wax uga soo wadno. walaalayaal waa ogtihiin dhibaato weyn ayaa dalkeena ka jirta, geeska Afrika ka jirta, oo ay ku hayso al-Qaacidada iyo al-Shabaab. haddaan lala dagaalamin oo sidii ninkii hadda gabanayay looga gabado na waxba weligeed meel gaari maayo. waxaa loo baahan yahay nafta bini'aadamka ay mar bay dhimataa. sida ilaahay inoo sheegayna qadar bay leedahay. wixii xunna qofka muwaadinka inuu diido waajib. nimankaanaad aragteen hadda dawladda iyo dadka Soomaaliyeed ba dhibaatada ku haya, qof walba oo Soomaaliyeed waa ka dheregsan yahay inaan hadda diin ka shaqeynayn oo dadnimo ka shaqeynayn. waa la og masaajidadii bay xidhayaan oo meheradihii ganacsiga ay xidhayaan. caawa halkan dad baanu ku abaalmarsiin doonaa annakoo ku hadlayna codka dabdacan dawladda iyo ka wasaaradda warfaafintaba. dadkii Soomaalida iyo ummadda Soomaaliyeed wuxuu qabtay qayb ka mid ah baanu abaalmarsiin doonaa. maqaaxiyo dad wax ka cuno village 3 jeer baa la qarxay. ma rasaas buu karinay, ma dawlad buu ahaa. yacni dadka ayaa nolosha laga xidhaya. dalkan in la yimaado oo nolol laga helo, ummadaasi noolaato oo masaajidada tagto cibaadaysato ayayna ka soo horjeedaan. dawladda gacmaha askartu bilaha soo socda geeska gees way isqabsanaysaa. dalka waa laga qabanaya nimankaas, meel ay galaan la heli maayo. shacabka Soomaaliyeedna waxaanu ka codsanaynaa dawladda taageera.
warbaahinta dawladda dhegaysta nimankaa waa la qabqabanayaae dawladda isgarab istaaga intaa markaan idhaahdo dadka Soomaaliyeed dawladnimada qaarkood khalad bay ka fahansan yihiin markii dawlad la soo magacaabo waxay u maleeyaan ruuxaan inay timid oo shaqana keeni doonto mushaar keeni doonto wadankana amni ka dhigi doonto halka dhinacii kale aanay shacabkii sidii la doonayay iyo ganacsatadii ula shaqaynayeen dawladii waa jiraan dad badan oo wanaagsan sida gabdhuhu oo kale gabdhaha Soomaaliyeed ee had iyo jeer dawladda dhinac taagan laakiin dawladdu waxay ku shaqaysaa dadkeeda isku istaaga dawlad xun waa jirtaa diidi maayo waa dawladii dhaqaalaha dadkeedu siiyo iyo isgarabtaaga dadkeedu siiyo si xun u maamusha annagu dawlad ahaan waxaanu diyaar u nahay inaan si fiican u maamulno dhaqaalaha dalka si fiican aan u maamulno abaabulka dadka si fiican aan u maamulno dadka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa inay iskaaga garab istaagaan tusaale yar baan idin siinayaa dadka adduunka dawladaha adduunku waxay ku shaqeeyaan waxa ay dalkooda ka helaan ama khayraad ay ka soo saareen ha noqdo ama cashuur ay dadkooda ka qaateen ha noqdo ama dawlad saaxiibi waxay ku caawisay ha noqdo saddexdaas weey annagu waqtiilo dalkeena wali khayraad laga soo saaro iyo shidaal laga soo saaro hadda male dawladuna dhaqaale uma hayso dadka Soomaaliyeed adduunka dadkiisu 30% konton ayay bixiyaan cashuurta ay shaqaystaan shirkaduhu markii sanadka la xisaabo 50% bay bixiyaan haddii faa'iidadu badan tahay 75% bay bixiyaan shirkadaheena marmarka qaarkood kuwa waaweyn faa'iidadoodu 150% waa 1% ma bixiyaan faa'iidadooda inta badankoodu 1% ma bixiyaan markaasay waxay doonayaan in askarigii hagaago uu baahan yahay waxay doonayaan dawladdii inay dalkii bil nabad ka dhigto mushaar ma qaadan waa la isku dhunsan yahay markaasay 2 bilood kadib markaanu dadkii iyo shaqaalihii iyo askartii waxoogaa u weynoo wixii ay keeni waayaan waa nacaayaan marka magacyay noo bixinay waxaa loo baahan yahay walaal in dawladda la isgarab istaago kambaniyada waaweyn ee qaarkood la leeyahay habeenkii bay ula dhuumanayaan al-shabaab oo lacag guriga ugu geynayaan waa inay dawladda siiyaan lacagta saasay ku badbaadayaan haddii kale ilmahooda sidii ilmihii dawladdii aynu walaalaha ahayn oo kale ayay yeelayaan nimankan ilmahooda halkaasay iskuul ugu gelayaan isagoo guriga ugu geeyay laakiin berri ka maalin saasay guriga ugu gelayaan walaalayaal dawladda waxaan ka codsanaynaa shacabka Soomaaliyeed dawladda waxa u qorshaysan qorshayaal adag iyo sidaanu sheegnay inay dalkan gaarsiiso doorasho 2016 laakiin wax kasta oo aanu qabanaynaa waxay ku xidhan tahay sida shacabka iyagu isu kaya garab istaago sida ganacsatada iyagu isu kaya garab istaagto sida ciidamada qaranka Soomaaliyeed loogu fahmo ciidamo u danaynaya ku difaacaya soo jeeda ku badbaadinaya markaas ayaan walaalayaal guuleysanaynaa dawladdu waa dhowr boqol oo qof kaligeed wax ma qaban karto waa in la garab istaagaa ciidamadu waa dhowr kun oo qof kaligood wax ma qaban karaan community police waa in la sameeyaa meelaha tusaalaha waxa weeye Hargeysa oo ah tusaale Hargeysa bamba laguma qarxin karo Garowe bamba laguma qarxin karo why not Muqdisho dadkeedu waynay kacaan ganacsigiina la diidan yahay village waa sheegay Maka al-Mukarrama guray xaaji muxuu cid ka hadlay meeshuu kafeeyo shaah ku gaday yaa marka waxa weeye nolosha lagu diiday waxa la ogyahay halkan madaxii Soomaaliyeed inuu yahay oo Soomaaliyaani wada bugsanayn inaa halkani bugskato dadka Soomaaliyeed waynu kacaa gabdhaha Soomaaliyeed baan maganuna aan leenahay nakiciya dadaala dawladda isgarab istaag inta walaalayaal markaan idhaahdo 20 iyo dhowr sano ku dhawaad ayaynu ku soo jirnay dhibaato iyo fawd dad badan baa dadaalay oo dalkan u dadaalay laakiin wali abaalmarinada la siiyay way yaraay dawladda waxa ka dhiman abaalmarinteeduna waa yarta ciqaabteeduna waa yarta dawladna labadaas aaba dawlad lagu noqdaaba inay qof ciqaabto qofna abaalmariso dawladnimadu way tahay way bilaabaysaa dawladdu waxay bilaabaysaa inay qofkii xun ciqaabto ama ganacsi ha noqdo ama shacab ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama xildhibaan ha noqdo qofkii xun ee dalkan wax ka hadlayna waa la ciqaaba
qofkii wanaagsanna waa la abaalmarinay caawa halkan waxaanu ku abaalmarinaynaa 8 halgame oo aanu u aragnay inaanu bilowno dadka waxa wanaagsan sameeyey waa fara badan laakiin 8 qof ayaanu abaalmarsiinayna waxaanu u aragnay inay bilow fiican tahay dad kulligood taariikh fiican ku leh inay yihiin agaasima cadaala qof kasta waxaanu ku abaalmarinay waa qornay waxaanu u samaynay shahaado ayaanu u samaynay calanka Soomaaliyeed ku wareegsan yahay calanka Soomaaliyeed ku wareegsan yahay qofka magaciisuna ku qoran yahay ayaanu samaynay qof kastana wixii aanu ku abaalmarsiinay waa qornay agaasimaha ayaanu dhiibayaa si uu qofka koowaad igu soo dhaweeyo mahadsanid معالي وزير waxaan kala codsanaynaa wasiirka qorsheynta madaxda Cabdiraxmaan inuu isnaabkan u yimaado waxa sida wasiirku sheegay dadkana yihiin dhowr qofood oo dad tusaale ah dadka Soomaaliyeed mudan aad u badan yihiin waxa ugu horeeya Sheekh Nuur Baaruud Gurxan waxa ay dowladda Soomaaliyeed ku abaalmarisay dadaalkii iyo waxqabadkiisii ku wajahnaa ku dhiirashada in ummadda Soomaaliyeed looga digo qatarta xagjirnimada iyo diin la'aanta Sheekh Nuur Baaruud Gurxan waxa ay dowladda Soomaaliyeed shahaado sharaftan ku siisay waxaanu kugu sharafnay Sheekh Nuur shahaadadan oo aad ku mutaysatay dadaalkaagii iyo waxqabadkaagii ku wajahnaa ku dhiirashada in ummadda Soomaaliyeed looga digo qatarta xagjirnimada iyo diin la'aanta waxaanu kugu dhiirigelinaynaa inaad sii wado dadaalkaaga iyo wax u qabashada dalkaaga iyo sidaas la sheegay Sheekh Nuur waa haliyey culimada Soomaaliyeed ka soo dhex baxay inaanu la gaban waxa Ilaahay baray inaanu la gaban dadka Soomaaliyeed inaanu kala gaban dariiqa toosan iyo diintoodu waxay qabto iyo al-qaacida iyo al-shabaab waxa ay dadka u sheegay wax beenayeen waa mahadsantahay waa ku mahadcelin aad iyo aad buu mahadsan yahay Sheekh Nuur labada gudoomiye guddi haday nagu soo biiri karaan aad buu fiicnaan lahayd aad buu mahadsantihiin waxa ku xiga Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale Xabeeb shahaado sharaf mudane Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale Xabeeb waxaanu kugu sharafnay shahaadadan oo aad ku mutaysatay dadaalkaagii iyo waxqabadkaagii ku wajahnaa u gargaarista dadka dhimir kala ee ku dayacan dariiqyada Soomaaliya waxaanu kugu dhiirigelinaynaa inaad sii wado dadaalkaaga iyo wax u qabashada ummadaada sidaa la sheegay Dr. Xabeeb wuxuu sameeyey wax taariikhi Soomaalida maadaama dhibaatadii ka badatay dad badan ayaa dhimirka ka xanuunsan wuu ururiyey waa laga wada abaal sheegtay waxaanu ka codsanaynaa Soomaalida iyo hay'adaha caalamiga ah inay dadka Soomaaliyeed ee sidaas u dhibaataysan noocay doonaan ba noqdeen ay ku jiraan kuwa laxaadkooda la in la caawiyo qofka dhimirka ay waa qofka ugu laxaad la'aanta xun waa dadka kale oo lug hadaad leedahay never mind waxa weeye ka maskaxda leh aad kaaga marka kuwa ugu xun bulshada إلا عاوية أستاهلوا عاوية بعد ما هتصلت خير الله كس بسم الله الرحمن الرحيم نظام رأي وزير كان والفافلتا بدها تمام وزير كورشينتا ولا الكلام كمان عينتا وما ستي هل كلمة أنا قفادي سنية من هنت اللي لها مجا عيسى سراجي أحمد داي المعركة سنة كيس اتحاد من $7,000 أي نص ديما وما في السنة وأنا هنت قوم يلواتهم كل أيام كمرنا فيه ما خانوا إما يخانوا ما ري
tiimiga qaranka ha guulaysto maasha allah mudana maalintii waxaan ka codsanayaa marka adoo ku hadlaya maanta magaca dawladda shirkadda dahabshiil waxay noo ballan qaaday dawladda hadday dhul bixiso inay dhisayso good waxaan ka codsanaynaa marka in ilaa iyo hadda 4 xarumood ayaa noo kelisan dhul weyn haddii la helo dahabshiil baa dhisaysa dhulkii baan kaa doonaynaa mudana maayaye hadii wasiirka qorsheynta mudane cabdiraxmaan hayte aad iyo aad baad mahadsantihiin aada u mahadsan waa mahadsan yahay doctor xabeeb waxaa halkan ku qoran shahaado sharaf marwe canab xasan cilmi waxaanu kugu sharafnay shahaado sharaftan oo aad ku mutaysatay dadaalkaagii iyo waxqabadkaagii ku wajahnaa u soo taagnaanshaha wargelinta danaha ummadda Soomaaliyeed waxaanan kugu dhiirigelinaynaa inaad sii wado dadaalkaaga ku aadan wax u qabashada ummadaada sidaa wagaasibuu sheegay runtii waxaana farxadiyaa guddoomiyuhuna inuu hor sheegay guddoomiyaha ururka haweenka inay sheegtay inay ahayd dadkii uga horreeyey hawshan wacyigelinta bulshada ee soo waday sidaan sheegnayna shahaadooyinku way soconayaan iyo abaalmarinta dadka soomaalida wax qabta canad waqti aada u dheer bay bilowday inay dadka soomaalida wacyigeliso iyadoo ka timid ama aan dhihi karo way ku dhalatay degaano nabada way aadi kartay waxay nafteeda u hurtay inay halkan dadka Soomaaliyeed habeen iyo maalin idaacad taagnaato u soo taagnaanshaheedii wacyigelinta bulshada ee ahayd hagar la'aanta ayaanu ku siin waad mahadsantahay waxaa ku xiga mudane maxamuud xareed dhegey soo dhawow waxaa halkan ku taalla mudane maxamuud xareed dhegey shahaado sharaf waxaanu kugu sharafnay shahaado sharaftan oo aad ku mutaysatay dadaalkaagii iyo waxqabadkaagii ku wajahnaa dib u soo noolaynta ganacsiga dalka qurxinta muuqaalka caasimadda iyo soo jiidashada dalxiisayaasha waxaanu kugu dhiirigelinaynaa inaad sii wado dadaalkaaga iyo wax u qabashada ummadaada wasiir cayntaasiinay soo dhawow xareed aad ma santa isku faanahay hada ma shahaado qabsan mid walba u fahman waa akhriyo mahadsan sidaa uu sheegay wasiirkaanu ku sharafnay inuu siiyo qorshaynta iyo xiriirka caalamiga laakiin walaalkay isaguna wuxuu ahaa dadkii furay liidadaad aragteen ee dadku tago sidaad aragtay loogu raaxaysto intaasoo jeer ayaa lagu waxyeeleeyey ganacsiga dalka iyo in Soomaaliya noqoto meel dalxiis oo dad badan oo dibadda ka yimid usoo hirtaan dadkii bilaabay waa mahadsan أنا وحنا كهلا عدك الشعب كأي عدك جنا عساس أيام كهلا مر هدانا هاي عدك فرح له هذه عدك النحلة أنا وحنا هاي دياسبر وحنا ودن كون مد أنا ودن كنولين دياسبر دتك السهول جيدا ودنتي دوري لواتن كسنو ودن كبربريي أنا وهدان دياسبر أنا هاي كي جوجا كي عرب جوجا كي يوروب جوجا كي أمريكا جوجا أنا وهالفران هاي waxaan halkan u nimid caruurtaaya iyo dadkaaya inaan ka soo ceshano wadamada shisheeya ay jiraan waxaa naga soo horjeeda dadkii burburka ku hayay dhowr iyo 20 sano wadanka jooga yeelina mayno kana yeeli mayno waxaan kaloon idin sheegaynaa dadka aaminsan magaalada Muqdisho amba ha noqoto Liido amba ha noqoto magaalada Muqdisho gobolka Banaadir oo dhan dadka lagu tilmaamayo inay waxyaalaha xunka ay sameeyayaan ka yeeli mayno anaga dad muslim ahanahay khamri yeeli mayno xashiish yeeli mayno shiishad yeeli mayno cid alla cid ku dhaqmaysana waa ka soo horjeednaa dad muslimaanay kutubka ilaahay ana kor u haysanaa waa ka soo horjeednaa qurba joog wadanka waxay u yimideen inay wadankooda haraagsadaan annaga dhowr iyo 20 sano wadan ka maqnayn haddii qurba joog wixii xun ay sameeyayaan waa ka soo horjeednaa hasaatee kuwa akhlaaq xumada sameeyaya oo wadanka jooga yeeli mayno dadka Soomaaliyeed amba ha joogaan gobolka Banaadir ha joogaan amba banaanka ha joogaan waxaan ka codsaynaa ilmuhu waa ilmahaayi wiilashu waa wiilashaayi gabdhuhu waa gabdhahaayi akhlaaqda oo dadnimada ha la ilaaliyo waana maasintii salaamu calaykum waraxmatullahi ugu horeeya Axmed Jaamac Maxamed oo loo yaqaan Axmed Fiilaj uu xanuunsan yahay Allah caafiyo
waxaa wasaaraddu ay leedahay shahaado sharaf. waxaanu kugu sharafnay shahaadadan oo aad ku mutaysatay dadaalkaagii iyo waxqabadkaagii ku wajahnaa dib u soo noolaynta ganacsiga dalka, qurxinta muuqaalka caasimadda iyo soo jiidashada dalxiisayaasha. waxaana kugu dhiirigelinaynaa inaad sii wadatid dadaalkaas aad u haysid dalkaaga iyo dadkaaga. qofka ku xiga shahaado sharaf waxaa la yidhahdaa gabadhan Farxiyo Maxamuud Mire. Farxiyo, waxaanu kugu sharafnay shahaadadan oo aad ku mutaysatay dadaalkaagii iyo waxqabadkaagii ku wajahnaa u gargaarista danyarta dhiban ee aan waxba looga qaban karin dalka gudihiisa. waxaana kugu dhiirigelinaynaa inaad sii wadid dadaalkaaga. gabadhan waa gabar u gargaarta dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan Talyaaniga ku nooshahay. dadkii ay caawisay ee ay qaaday waxaa ka mid ah Axmed Cabdi Gaashaan oo ku dhaawacmay 2 sano ka hor isla munaasabadan oo kaleeto. waxa u qaadaysa Muno waxaa halkan ku qoran shahaado sharaf mudane Abuukar Jaamac Cawaale oo lagu naynaaso qaadiid. waxaanu kugu sharafnay shahaadadan oo aad ku mutaysatay dadaalkaagii iyo waxqabadkaagii ku wajahnaa ka joojinta daroogada qaadka Soomaalida ku nool Yurub gaar ahaan Ingiriiska. waxaanu kugu dhiirigelinaynaa inaad sii wadid dadaalkaaga iyo waxqabashadaada. Abuukar waa wada taqaaniin, waa ninka qaadka la dagaalama, haddana dagaalka qaadka ayuu u joogaa gobolka bari ee Soomaaliya. waxa ugu dambeeya waxaanu kugu sharafnay mudane Cabdi Muuse Maxay. waxaanu kugu sharafnay shahaado sharaftan oo aad ku mutaysatay dadaalkaagii iyo waxqabadkaagii ku wajahnaa u gargaarista danyarta dhiban ee aan wax looga qaban karin dalka gudihiisa. waxaanu kugu dhiirigelinaynaa inaad sii wado dadaalkaaga iyo waxqabashada dalkaaga. Cabdi Muuse Maxay waa wada taqaanaan baan rajaynayaa. wuxuu qaaday dad badan oo ay ku jiraan carruur isku dheggan oo wax looga qaban waayo gudaha iyo dad kale aad u badan oo Ilaahay u caafiyay, wuxuuna ku nool yahay waddanka Mareykanka. 8 qof ayaanu ka dhigaynaa daafurka. waxaanu rajaynaynaa in madaxda sare ee qaranka, madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay siin doonaan. anigu waxaan isleeyahay caawa anaa siiyey wasaaradda warfaafinta, laakiin dadkan iyo dad kale oo badan waxay astaahilaan in la siiyo biladgeesi. biladgeesigu ma aha oo keliya qofka dagaal gala maaha. dagaalku waa dhinacyo badan yahay. dadkaas aad aragteen oo qof Soomaaliyeed, gabar Soomaaliyeed oo dhashay cunug isku dheggan oo wax kala goyn kara aanay dalkan joogin, hooyo ka soo qaad oo aan ka seexan karin hooyadu dhashay, ka qaaday ilaa u saciyey. horta marka hore dadaal badan ku bixiyey inuu u socdo, dhaqaale u raadiyo, diyaarad u raaco, shirar u qabto, dad ajaaniba ula hadlo, soo duulo, halkaan yimaado. intaa waxa wada dareen Soomaaliyeed. dawladdiisu inaanay ogaan ma qabato marka. waa inay dawladdiisu ogtahay, waayo dadka annaka mas'uulka ah. marka 8 qof waan ammaanayaa. inta kale ee la midka ah ee aanaan weli gaadhin waxaanu ku baraarujinaynay dalku inuu leeyahay dawlad wax abaal marisa, waxna ciqaabi doonta insha Allahu tacaala qofkii dembi kala. marka kuwa kale astaahila in la siiyo shahaadooyinkaas oo kale aanaan gaadhin waa gaadhaynaa. madaxda qaranka gaadhaysa. dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dawlad buu leeyahay. waxa weeye dawladuna qofkii wax u tarana waa ogtahay, shacabka ogba. waayo waxa laga yaabaa shacabku hadda way ka gali karaan doodo qof aanu si garaba ku siinay ama la jeclaysanay hadduu jiro, iyo dadkan dad astaahilan inay jiraan inay yihiin iyaga kala sheegi doona. annaku intaanu shirnay annaka iyo agaasimayaashu ayaanu soo xulnay. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. kasoo qaybgalkiina waa idinku mahadinayaa. hambal iyo wasaaradda warfaafinta gobolada Waaberi waa mahadsantihiin. shirku waa inoo xidhay.